Soomaali waa mid, waa hal calan, waa hal diin, waa hal qabiil. Soomaaliya, I love you. The one and only ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੋ ਕਾਤਿਲ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ slowly ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ slowly ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ hello assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وبركات أدبنا دين سلامة يا صومالي ذا ميل والبود يوكتان يسي والبو أدنو دقيسانيسان مقعي هو إسماعيل أراح مركي يوغوه الرئيسي هدي أي تايو جنال كاسو بوغانيسو فالله وحنك حوصلنا ولا لسي شرف يكو جدو إناد سبسكريبشن بطن كتابتو لاينا آتراحضو شيرنا آسيسيسو كومنتي قادة غروح دو بدنا أنا لو وداكتو haddaba caawi waxaan ka hadlayaa ma jeclaysan inaan barnaamijyo noocan oo kale ka hadlo laakiin mararka qaar waxaa muhiim ah in aad ka hadasho wixii u baahan in laga hadlo xilligii waqtigii iyo meeshiiba ku habboon marka waxaan u arkay sida aad ku aragtay title-ka waxa bari ugu dambeeyay laga hadlayay barnaamijyo qabiil ku sababsan oo dad ay maqaayadahooda amaba youtuberadooda ay ku shidanayeen waxa laga hadlay haddii annaga Soomaalideena waxa xaqiiqa qofka ugu yar ee Soomaalida ay hadda iminka social media ku jiro wuu garan kari karayaa xarunka qabyaalada ay leedahay wuu garan kari karayaa xumaanta iyo qurunimada ku jirto waxa qabyaalada la dhaho qabiilka ma aha waa qabyaalada waxa marka laga hadlayay barnaamij la dhaho hawiye iyo daarood oo waliba ay xataa waxaan actually la yaabay in la yiraahdo kabtan ayub oo aan dhageysanayay barnaamijkiisa si uu hadlayo qaabka ay yani ugu diiran yahay barnaamijyadaas iyo sidii wixii official looga dhigayo wararta niyo marka ugu horeyso qofka inuu shaqeysto annagoo dhan waxaan ognahay kulligeen dadku horta views biraadinayaan wana xaqiiq aan marnababo aan la qarin karinin way hase yeeshee viewska aad raadinaysid waa inaad ku raadisid si xigmadaysan si caqliyeysan si aan dhibaato u keenaynin dadka kale ee walaalaha waxaan idiin hayaa horta Soomaalidu waa mid wax walbana Soomaalinimada ka weyn waxa laga hadlayo leeyahay maanta hawiye daarood qabiilka horta waa laga dhashay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa naga dhaliyay laakiin qaabka annaga aanu adeegsanayno runtii 30 sano ugu dambeysay Soomaaliya waxa ka jiray 1991kii dad baa almost qarniga waa 100 sano half qarni waa 50 sano 50kii 30 laga sii jiray dad baa waqtigoodii cimrigoodii ku waayay dawladoodii ayagoo qabiil isticmaalaya qabiil ka hadlayo qabyaalada waa midana dhigtay maanta inaan qaxooti ku nahay dal walbo adduunka outside of Somalia haddii aad baxdid Soomaalida waa qaxooti waa ku bahdilayeen waa qofka qaxooti markuu yahay wuu bahdilayeen wixii marka dadkii intooda badanna waxay galeen tahriibka maxaa keenay asal maxaa u ahaa waxa asal u ahaa dhibaato meesha ka dhacday dagaalada asal maxaa u ahaa dagaalada waxa asal u ahaa qabiil iyo qabyaalad ba asal u ahaa wixii marka annaga aan 30 sano ku soo jirnay oo nin dhalinyaro oo daadida 30 sano waqtigiisa cimrigiisa uga dhumay inuu qof intuu soo qaato oo soo wato social media u keeno oo dhoo aniga hawiya nahay aniga daarood baa nahay ummadii Soomaaliyeed ee walaalaha isjeclayd haddana ku sii kala abuurayo Ilaahay kuma darnaaday kala shaki ama cuqdad horta wax wanaagsan maahan dadka siyaabo kala duwan bay uga hadleen qar la siiyo sheer la dhaho sheek dulmidid wadaadkaas aniga aad baan u taageeraa si fiican buu uga hadlay waan ognahay ragga dhalinyarada ah ee ku jiro social media waxay doonayaan inay YouTube kooda ku shitaan it's fine there's no problem at all laakiin waxa aad ku shidanaysid maqaayada waxaan ogeyn anagoo qof la caayo laba qof oo isaysato oo la soo qaato fanaan hees qaado heestiisa la reaction laga bixiyo laba qof oo isku dhagan Soomaalida halkaas marayso oo qaab noocaas ah iyo YouTuberada loo shidan jiray laakiin hadda waxay maraysaa to the last
extent waa saasaan ku dhigana marka meesha xilliga hadda ay Soomaalidu ka gaadhay qabyaaladda hawiye iyo daarood warninkii odayga hawiye ahaa Allah u naxariisto uu dhintay qabrigiisa Ilaahay ha uu waasiyo odayga daarood ahaa Ilaahay qabrigiisa uu waasiyo dadka wada joogo odayaal dhinteen 2 bilyan oo sano ka hor dhintay in la isku soo orkacsado la dhaho saarana waxa odaygaana u duceysid buu ka mudan yahay inaad dhibaato magaciisa ku keensatid ma marka niyo waxaan halkan fariin uga dirayaa dadka arrimahan ku loolantamayo gaar ahaan dadka keenay barnaamijkan hawiyaha iyo daaroodka ee TikTok-ga keenay waxaan fariin u dirayaa qof walba oo Soomaalinimada jecelna waxaan ku dhiirigelinayaa inuu share gareeyo channelka inuu share gareeyo videogan waxaan fariin u dirayaa dadkaas waxaad wadaan oo aad boogtaad danqinaysaan waa boog Soomaalidu ay ka soo bogsoonaatay waa boog laga tagay waa wax Ilaahay kuma darnaa hadda anaga right now aan u baahnayn hawiyana aqoonin daarood baan aqoonin labadoodaba waa qabiil Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed waa Ilaahay kuma darnaadee waa dad labadaba wehelkayga ama garabkayga marka fadlan barnaamijyada aad wadaan ragga sheeganayo oo YouTuberada isticmaalayo ee qabiil Soomaaliyeed ku orkacsanaya qabiil Soomaaliyeed raba inay Ilaahay kuma darnaadee YouTube ku kiciyaan ilma adeeryaal irsaaqadiina meel kale ka raadsaday irsaaqadii baa meel xun idin ka gashay irsaaqadiina meel fiican ka raadsada saaqadaada haday meel qaldan ka gasho waa halis waa haddii irsaaqadaada shar bas ay ka gasho waa dhib waa irsaaqada Ilaahay jalla wa ala wuu badiyay waa ballaariyay meel kale ka raadso qabiilada Soomaalida ha ku soo hoos noqonin heesahaadi ka hadal nin isaga dhiga daaratay sida isku dhigi jirteen oo maalin walba isku haysan jirteen isku dhiga laakiin barnaamijkan u gooya ka dhaca qabiilka ka dhaca waa ceeb waayo waxa la marayaa 2022 hadda galina hadaal bil nooga harsan tahay qabiil xilli laga hadlo waa laga tagay Soomaaliyeed qabiil waa laga tagay waxaas mar hore aha qofka inuu ku abtirsado inay hebel banahay that's fine there's no problem laakiin qabyaalad in la sii daba socdo in la isku sii ballami ee TikTok lagu tago ilmaha yaryar xishooda ilmaha yaryar dadka miyaysan ku jirin dad garasho leh oo caqli leh oo Ilaahay kuma darnaaday Soomaalinimada iyo kala ay ka dhacsan tahay marka waxaas naga daaya waa ognahay Soomaalida waa topic si fiican u yaqaanaan waa qabyaalada laakiin isku day inaad ka gudubtaan waxaas isku day inaad ka gudubtaan oo wax kale oo gudubtaan aniga fariinteyda waa intaas fadlan Soomaaliyay mid baa tihiin qabyaalad iyo qurun ninkii wado si wada jir ah uga soo horjeesto waxaan dalalka caalamka qaxooti ugu nahay oo aan nolosha sharfeynin waxay ka timid qabyaalada waa qabyaaladaas marka waa inaan duugno ilaa wallahi qabyaalada aan duugnana hormar ma gaarayno Soomaali waa mid waa hal calan waa hal diin waa hal qabiil Soomaaliya I love you